Soomaaliga af Soomaaliga waqooyi lagaga hadlo iyo af Soomaaliga koonfur lagaga hadlo keebaa saxa waxaad u jeedaa lahjadaha ay horta dadka Soomaalidu waxay ku hadlaan af isku mid ah watan la yiraahdo hal af bay sax marka laakiin waxa jira lahjado mararka qaarkood gobolada qaarkood hadaa tagtid lahjada waxa lagu yiraahdo ereyga laga yaabo inaad garan waysid sax tusaale mid iyo laba ka soo qaadana waqooyiga iyo koonfurta ereyga su'aashaada weydiisay kuma saxsan aan waxaan ku jawaabi lahaa labadu way saxsan qof waliba waxa uu yaqaano shayga uu ku saxsan yahay inuu sheegay magac la baxo marka lama oran karayo laakiin waxa ku jira ereyada Soomaaliga sax kuwa badan oo koonfurta ay sax tahay iyo kuwa badan oo waqooyigu ay sax yihiin qaarkoodna afka Carabiga iyo afka Ingiriisiga iyo af Talyaani baa dhex gala hal tusaale ku siinaya qaado oo kale hadaan ku raado qaado ikraan ahaan maxaad oranaysaa qaado maxay qaado anigu afkaan waa qana waa malqacad sax gobolada waqooyi oo dhan waxa loo yaqaan malqacad sax koonfurna qaada loo yaqaan marka malqacad marka ugu horeysa waa luqada Carabiga inkastoo wali wax ka khirban yihiin sax oo marka sax lagu dhawaaqayo waa malcaqa marka malcaqa ayaa isbedesha malqacad baynu ka dhignay laakiin xagga marka la tago qaado ayay noqonaysaa qaadana waa tii wax qaadaysa sax taas oo kale waxa la oran karayaa koonfurta saxsan ayaa saxsan waayahay geel baa u taqaanaa sama ikraan geel baan aqaanaa ma la socotaa in gobolada qaar ay gaal u yaqaanaan geela gaal ma maqal waayahay tusaale ahaan ma maqasho weli haruubka lagu liso geela in magaciisa la yiraahdo harub gaal baa la yiraahdaa marka lama yiraahdo harub geel waa harub gaal baa la yiraahdaa صح harubgaalku waa harubkan caanaha lagu shubayo ee lagu liso marka harubgaalku gobolada waqooyi oo dhan harubgaal baa la yiraahdaa gaalkaas marka waa geelan haye dadka Soomaaliyeed qabaayil fara badan kala duwan way صح gaal jecel baad maqlaysaa gaal jecel kuma aha qof French jecel ma haye waa geel jecel marka gaal baa halkaasna sax noqonaysa صح waata aliyo bal waxaad iga warantaa lacag ereyga lacag bal iga waran meeshu ka soo jeedo iyo wuxuu yahay ha way haddaan isku dayo aan ikraani cag horta waa taqaanaa waa cagtan hoose sama waa runta way مثلا ويل بعض أصول قضايا ساعة أما أصول إيبين ساكبه كبيه هدي أنا كل سعون وين الأكتيسي القياس تدي قرنسة صح هدي قياس تدي أتقرن ويدي ويل كلا وماشي تشوفه أيات كورنسة مثلا أحمدو شامع ما يسكو عقباتين هاي محمد نقول سمعنا أحمدو شامع مسكو عقباتين كبتي بالله قال لي سمع صح يعني أكتين مسدر الأكت ها وحكورنا يا لعق بانهاي لعق أيانهاي صح لمد بانهاي بيكردي أنت ها أوكي برجع حولها اللي سكوب الدرجة إنتان لعقت إيمان الصومالية صح حولها يروح اللي سكوب الدرجة راشك هاي مركان نبى نيف أري الله إيمانية تبي تروح حلاقة بين السيا اللي بكيشوا بريسي بالدقيقة هاي مركان نيف كيف الله صرفي العقل لما كان قاعد سمع صح مركان لعقت تني أيها الدنيا دتك رميجة ها إن لقد عدعيو إن لعقته waxay tahay marka waxa la leeyahay ninka xoolaha laha naqdiga warqadan kaashta la sitaa ee lacagtahay ila marka lacag lama oranayo bahashan warqadani waxay lacag tahay neefkaaga ay la mid tahay صح $10 waxay la mid yihiin neefkaaga ama $10 waxay la mid yihiin raashinka aad haysid oo laba kiish marka waxa la oranayaa warqadani waxay lacag tahay inta marka dadku waxay qabatimayaan walba lacagtii ee keena lacag baa halkaas ka timid waa la mid marka lacag halkaas ka timid bal aliyo ereyga wadaadna bal halku kimid bal way imka ereyada weydiinaysid waa kuwa af Soomaali sax ah صح oo si fiican loo macnayn karayo qaarkood waxay isugu jiraan laba erey oo la isku daray oo macna sameeyay wadaad waxaan noqonaa sheekha Soomaali sheekhan noqonaa wadaad sheekhu كلمة واحد سويت شرطة ود يأد يمكن هذا كل حاجة آدسة
xaafadeedii baan aadaya xaafadeedii baan aadaya yani gurigii baan aadaya ha wad macnaheed maxaa u taqaanaa wad waa wadka dadka waa dhimasho ha dhimashada okay marka waa wad aad kii wadka aadaya soo ma ha marka af Soomaali ereyga in macnaheedu waa wad aad okay marka waayadaa hore wadaadku de isaga xabaasha tagi jiray oo salaada dadka tujin jiray oo jinaasada ahoo marka la tago xabaasha isaga ducayn jiray oo qofkii dhimanayay ee xanuunsanayay isaga loo soo diri jiray loo jirka quraanku akhriyo صح qofka ama ha dhinta ama ha caafimaade isaga de loo keen jiray isaga loo marka wax u bixiyeen wadaad kii hadii jeer wadka aadayay haye waa waayadii hore haye marka asalkeedii hore halkaas ka timi haye waa laba kelmadood oo la isku daray oo noqonaya wadaad ninka hadii jeer quraanka iyo de meelaha ay ka dhow yihiin dadka ama xanuunsan ama qabuuraha ka agdhow marka wadaadna sida ay u noqonaysaa af Soomaali halkaas ku yimid af Soomaaliga okay dadka dhalinyarada imka soo koraya ee afku ka lumayo waxa ugu daran oo aanay qaban kareynba oo hadii aad weydiisid jidkooda oo kale jilib iyo ruug waa isku sama marka jilibka kubba ka sii hooseeya waxa jirta meel la yiraahdo canqow meel baa jirta la yiraahdo quraankur meel baa jirta la yiraahdo boqonta صح boqon saadmad garan farihi waad ogtahay oo yaraantaada ikraani I don't know inaad waan garanayaa magaca loo oran jiray ta fariyada la oran jiray tan faaduma la oran jiray fardaha la oran jiray tan murdisa la oran jiray suulgumud baa la oran jiray marka murdisadu waxa weey marka cuntada la cuno maartay bariga hore qaaday iyo ayaa cuntada inta ugu macaan ay hadhaa ayaa de lagu muusan jiray